wafdigan uu hogaaminayo safiirka dawladda Ingiriiska u jooga dalka Soomaaliya markii uu soo gaaray magaalada Baydhabo wuxuu kulan la qaatay Madaxweynaha Koonfur Galbeed Xasan Sheekh Aadan kulanka oo ahaa mid saacado dhowr ah qaatay waxaana xurka laga gaaray warbaahinta ugu waramay Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Sheekh Aadan iyo safiirka dawladda Ingiriiska ee dalka Soomaaliya sidoo in Kulmay oo gaadhay Soomaaliya oo Kulmay magana UK gaadhay sida Koonfur Galbeed oo Kulmay eedina oo magana sida dadweynaha tababarasho iyo barnaamijyo Qaabilsan Somaliya station iyo Soomaaliya ciidamada booliiska sida Kulmay gobolka Koonfur iyo Kulmay doona iyo warqadkoodii badan hadii ay dadweynaha oo kaalmada bani'aadamka iyo dadweynaha horumarinta eedina magana أنا ولي بدر وبدر قوضها من قوضها من بس أفكار أبني جسي ولا قوضة في الجناسي اللي فرفضي يجي تدقمين يقولون بس هو هاي السنة إذا ماذا قبلك هذا فدي السنة إذا ما برشة وين تجيبين ولا قبلك هذا فدي ولا فدي لما أنت قوضها بالناس يجي بس قوضها بالناس سيدا كلمة بني آدم قرون تتعوار وبسنا إلهي من قوضها كده magana waan iska wada afkar dhamaantii marka uu sii wada wafdiga magana An excellent discussion with the President and with his team. We talked about the UK support in training the Somali National Army in Daawo. We've talked about the future of that. We've talked about UK support for state police in Southwest State. We talked about the UK's support for humanitarian relief, and we talked about how the Somali Stability Fund, which the UK funds, can. dawladda Ingiriiska waxay ka mid tahay dawladaha mashaariicda ugu yaboohay dalka Soomaaliya. Ali Ilyas Abdullahi, Home Cable TV, Baydhabo.